deeqdan oo ka koobnayd maacunta guryaha iyo bacaha roobka ayaa waxaa qaybinaysay dalada Hanaqaad iyadoo ay soo gaarsiisay hay'adda MPA ee gudaha magaalada Laascaanood degan. deeqdan ayaa waxaa ka faa'iideysanaya qoysas kor u dhaafaya 600 oo qoys oo kamid ah iyagu dadka barakacayaasha ah iyo dadka magaalada gudaheeda degan ee xooluhu hore uga soo dhamaadeen. deeqdan ayaa waxa aysan ahayn deeqdii ugu horeysay ay soo gaarsiiso hay'adda MPA dalada Hanaqaad iyadoo ka jirta gudaha magaalada Laascaanood iyadoo hay'adda MPA ay gaarsiiso deeqo kala duwan si ay u guddoonsiiyaan dadka danyarta ah ururada la shaqeeya hay'adda MPA. waxaa halkaasi ka hadlay Maxamed Xasan oo ka tirsan hay'adda MPA sheegayna muhiimadda alaabtani ay leedahay iyo dadka ka faa'iideysanaya waxaana kamid ah hadaladiisa sida tan maanta insha Allah halkii ka sheegno MPA maanta waxaan deeq loogu talagalay dadka ay deeqdaas oo ah ama ka kooban waxyaalaha guriga agabka guriga cuntada lagu karsado iyo biyaha lagu shubto waxyaalahaas oo loogu talagalay dadka ay Laascaanood ku nool. deeqdan ma aha maanta oo keliya ama sanadkan oo keliya Laascaanoodkii sano u dambeeyay hay'adda MPA way bixinaysay. insha Allah waxaan rajaynaynaa inay dad fara badan ka faa'iideystaan waxaa iyaduna halkaasi ka hadashay Basra Cumar Geele oo ka tirsan dalada Hanaqaad iyadoo ka dhisan gudaha magaalada Laascaanood sheegtayna in deeqdan aysan ahayn deeqdii ugu horeysay balse ay tahay deeqo isdaba joog ah oo hay'adda MPA ay soo gaarsiinaysa dalada Hanaqaad. bixisay hay'adda MPA mana aha markii koowaad ay bixiso waa markii shanaad mashruucan marba qayb waxa maanta waxa weeyaan 800 qoys waana wax soo jirjiray aan bixin jirnay waxay haytay Hanaqaad ay bixin jirtay waxaana loogu talagalay dadka barakacayaasha ah waxay haytay ku soo cayroobay ama baadiyaha ka yimaadeen ama koonfurta ka yimaadeen ama meel kale ka yimaadeen dadka barakacayaasha ah loogu talagalay wuxuu ka kooban yahay wiciyad dhan oo reer ku dhaqmo iyo maxay tahay salligii mustahay huwanayeen bacday guriga saaranayeen faynuuskii jirkaankii biyaha marakaneecadii maxay haytay digsigii killigii qaadooyinkii saxamadii alaab dhan oo reer ku dhaqmo weeyaan. marka waxaa loogu talagalay reer kasta oo maxay haytay barakaca in intaa in la siiyo waana wax macnaha aan soo bixin jiray soo jirjay waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda MPA oo mar walba naga kaalmaysa inaan dadka ayaga maxay haytay wax siino. dadka waxa kamid ah dadka deegaanka gudihiisa ku barakacay dadka maxay haytay baadiyaha xoolo ka soo dhamaadeen iyaguna halkaasi ka hadlay dadkii agabka la guddoonsiiyay waxa ayna u mahadceliyeen hay'adda MPA iyo dalada Hanaqaad ee haweenweynaha gobolka Sool sida ay ugu qaybiyeen deeqdani. digsiyo koobab madibado faynuus bustayaal qadiifado baco bustayaal wax walba waanu qaadanay siisa MPA hay'adda MPA waxaana fulisay Hanaqaad. Santa waa waxa u mahadnaqaynaa hay'adda oo alaab noo keentay alaab waa la isii barqaan ka imaaday koonfurta ka imaaday dhawaan ka imaaday waa maxsantiin alaab hadda ku seexdo oo ku dhamaan waa la isii gacanta ku haystaa. Cabdikariin Olol Somali Channel TV magaalada Laascaanood.